الله يابي وحال يابي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وركور حالد ورشان بيه فيعن إلهي مهدي وحور محايسا نبض بانو الشيخ ماذا قولي مهرد جوكتي قولي لما شاء النوع كان هذا وراده كور حالد نبض بانو الشيخ عرق كور عرق وبرواقو ما إن شاء الله ديرتان waa دير برواقة دير برواقة عيد يا عضم بوار روبصة يهود بقى ولا ينقال ميل عن روبسن ما شاء الله إلهي وكل بقى الحمد لله رب العالمين. waxaan ku yiri السلام عليكم. وعليكم السلام. وضياشي ورما ما في عنه والنبض adduunka ilaahay meeshana iska farfadhida waxa aan ogaalkeeda ogaaday iyo waxa meel loo wado iyo xaaladisay tahay hadaa ogaan lahaydeen warnimayo iska aamus waxa isku fadhidaan waxa weeyaan waxay doonaan ha ahaadeen laakiin waxa maqlay baa ka weyn maxaa maqash warnimayo iska aamus noo waran bal maxaa maqash war waxaysan dhagin maqlay oo dhagi u adkaysan ka warniyo wadanka meel daran baa lagu wadaa war hadii la yiri adduunka wataqaana waxaan inta ku soo leekaanay oo wax soo jiri jiray iyo wax la arki jiray baa la rabaa in wax laga bedelo oo wixii lagu bedeli lahaa waxaan munaasab iyo macquul ahayn lagu bedelo maxaa weeyo war dhagtay waa u adkaysan hadii la yiri wadanka doorasho ah waxa lagu wadaa qof iyo cod bala ila qof iyo cod wariya maxaa la hayaa lagu wadaa waqtigan ma jiro tabari xataa ma jiro awoodi energy doo wariya hadi man xanuunsan baad waxaan xanuunsiyo wariya hadi warkaad ka hadlaysi haddaan idaacada ka dhageysayna annagu ma garat haye waana ku diirsana war ka farxad badan weligay ma maqal war waa war dulqaad u baahan leeyahay wariya hadii la yiri dalkii doorasho xalaala ka dhacaysa oo dimuqraadiyada oo shacabku codaynayo maxaad ku mucaaradaysaa oo la yaabanta war yaa tii jidhay maxaraan bay ahayd ma ahayne ruunkii la deganaa maxaa khaldan waa laga guurayaa adigu day maalin walba dan miyaa kugu jidha nin aadan aqoon in lagu dul keeno oo aadan adigu wax doora ku lahayn may inaad codkaaga qofka aad dooranaysa adigu ku keensata birina la xisaabtanto hadduu shaqayn waayana cayriso awoodda haddii lagu siiyey maxaad ku mucaarada hadda idhagayso adiguna waxaadan war ka hayn tan hadda la wado waa mid waqti u baahan wariya ninka maxaa ka siya ninku waa jawaafan yahay dawaab aragtaa inuu jawaafanay hadal dhadhan laan maqlaayeen maxaa tirahdeen doorashada bal fariiso walaal fariiso gabadhu waxa ogaal doorashada maxaa tirahdeen qof iyo cod ما صورة قرر يدهن حدرتها ساعتها ورهادها doorashada qof iyo codka danteena ku jirta صح laakiin waqti ku filan ma haysan waka aqligan rabo meeshaan ka hadlayo inna fahmi ma diidani qof iyo cod laakiin time baan jirin waqti ma inaan eegin wala qaban xaal la qabtaa waxa haray war baladugu ii kaadi duloy miyadan adigu ka sharaxnay ururkii muxuu yahay walaaca baas ee kugu jira ka muuqda aad leedahay waqti inugu filan ma haysano adiguna waxaad ahayd kii soo dhaweyn lahaa u riyaaqi lahaa raadin lahaa doorashada qof iyo cod ee ma tihid kii ka hortagi lahaa ama diidi lahaa waxaan ku leeyahay nin dhalinyaro baa tahay ka faa'iideyso waqtigaaga maalin walba nin aadan aqoon aan lahayn oo meel uu ka shaqeeyo meel uu ka yimi aan la garanayn ha u raxlayna wariya ay dhageyso war ma haysid Puntland maanta fursad bay haysataa qalabkii ugu casrisanaa oo diiwaangelinta iyo hawlaha doorashada ahaa waa diyaar waa la keenay beeshii caalamka oo taageero iyo haddii ilaahay ku idmayo isha dhiirigelin la garab taaganna waa haysanaa ma sideedaba maanta waa fursadaan uga guuri lahayn ruunkii aan 23 sano deganayn shacabkuna ay awood yeelan lahaayeen ha mucaaradine dadkaaga dhinac ka raac bal waa is arkayna waana isla joognaa wareedaha anba ma moogi agabkaas casriga ah waan dhageystay oo labada dhagood in la keenay nacam waa ku soo dhaceen waan hadii ilaahay idankeeda leeyahay tartamaynaa oo waan soconaa allow noo rumee islaamaha tuuladan degan oo dhanna tuulada islaamaha degan ana igu daba faylaano waxaan rabaa hadii ilaahay idankeeda leeyahay hadaan guuleysano
inaan suuq weyno haddii ilaahay idinkeeda leeyahay hayacda la yidhaahdo oo saa la isku dhex maro aad u furto aan saas wakaa fikirka saliimka xuseenow haddaad dhaga leedahay laguu sheeg qalabkii waa diyaar dadkii waa diyaar guddigii doorashaduna waa diyaare dib u socod ha noqon baan ku leeyahay dadkaaga dhinac ka raac anigu intaas hadalka ugu gabagabay horumarkana ka shaqee ilma adeerayaalow qalabkaasi hadduu diyaar yahay ururaduna diyaar yihiin shacabkii iyo madaxdiina israacsan tahay saqiir iyo kabiir barraali laga yahay waqtigaasna la isku filaysiinayo aniguna waa ogolahay ilaahu noo maqbuulo nooga dhig maqbuulo geesinimo wax yar caga dhulka ku bas wey fatahad Allah wabillahi tawfiiq bas shaah maana bixiya xalab soo iga tahay